ku dareen inay ka yimaadeen degmada Taleex ee gobolka Sool halkaas oo caasimadu ah maamulka Khaatimo gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeeniare iyo taliyaha qaybta 12aad Axmed Hurre oo yana halkaasi ka hadlay ayaa ciidamada maanta u soo galay ku soo dhaweeyay gacmo furan isla markaana sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada Somaliland Salebaan Cabdi Jaamac oo ah taliyaha ciidanka Taleex ee Khaatimo go'aansanay maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ballan qaaday cafiska inaan ka faa'iideysano waxayna maanta ku soo biireen ciidanka jamhuuriyadda Somaliland waxaan ku soo dhaweynaa marka hore gacmo furan inay ku soo biiraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxay nagu qaadatay muddo ku siman 45 maalmood oo aan ayaga xiriir joogta lahayn wada hadal noo socday aan hubinaynay kalsoonidooda ay ku qabaan ciidanka qaranka iyo inay ku soo biiraan ciidanka jamhuuriyadda Somaliland muddo inta laag bay ahayd nasiib wanaag maanta ku soo noqotay inay taariikhiyan ku soo biiraan ciidanka jamhuuriyadda Somaliland ragga kan noo yimi iyo kuwa kale la midka ah hadda banaanka jira kuwa kale saxaafadda waa naga arki doonaan waxaan leenahay war soo dhawaado noo kaalay oo naga mid noqda waqtiga dawladnimo iyo jabhadnimo wax la isbarbar dhigo maaha kuwa maanta saaxiibadiina shalay la joogay maanta waa kuwa ciidamada qaranka mid noqday ilaahay waxaan ka baryayaa idinka kuwa xasilay lahayd ka dhigo markii xigtana ilaahay waxaan ka baryayaa kuwaas inay hubka iska dhigaan way soo dhaweynayna